Waxa ay tiri, ninkaygu waa nin ahludiin ah, wax xoolaa ma haysto. Mar walba aan ismaandhaafno, aan ku qaylo aan eray xun dhaho, inta uu sidaa ii fiiriyo ayuu iga sii tagayaa. Maalin maalmaha ka mid ah, aad baan ugu qayliyay. Kadib asagana sidii anigaan dhahay buu yiri. Anigana waa carooday, waan seexday. Habeenkii markii la gaaray, waan fikiray waxaan iri sidaan kuulama hadli jirine maxaa ku dhacay. Markaas habeenkii intaan seexday, asagana wuu seexday. Waxa uu soo kacay markii la gaaray waqtiga habeenka saqda dhexe. Wuu tukaday, Ilaahay ayuu baryay, wuu ooyay. Wuxuu yiri, Ilaahayow amaanadii la igu amaanaystay waan ka murgiyay, Ilaahayow i cafi. Amaanadii la ii dhiibtay waan ka murgiyay, Ilaahow i cafi. Markaasuu soo seexday bay tiri. Marka uu sidaa u soo seexday, waa uu ilmeynayay. Markaas intaan ku soo booday, waxaan ku yiri, iga raali noqo haddii aan kuu gafay. Markaas wuxuu igu yiri tiri, aniga kama xumi taas, laakiinse waxaan ka murugsanahay inta hooyo aysan geeriyoonin ayaa waxay ii dhiibtay warqad. Maalin ayay ii wacday, waxay igu tiri, wiilkaygiiyo waqtiga aan dhimanay ma garanaye. Warqadaanayto maalintaan geeriyoodo ee fur ee akhri. Anigana ma aanan furin oo meel baan dhigay. Maalintay geeriyootay kadib, maalin aan soo qaaday. Waxaa ku qorneyd, wiilkaygiiyo gabadhaanayto waa qayb ka mid ah beerkayga, wadnahayga. Marka ii ilaali, amaana ayay kugu tahay. Markaas hadalkaas mar walba aad igu qaylisid, hadalkaas ayaan soo xasuusan jiray. Waxba kuma aanan dhihi jirin. Marka labada lamaane ay isqaba, waxa ay had iyo jeer u baahan yihiin isku tanaasul. Ninkana waxa uu u baahan yahay ka dambeyn iyo ixtiraam, sida ay naftu ugu baahan tahay oksijiinka.